بسم الله الرحمن الرحيم وعن dhageystayaal saaxiibayaal idil ahaantiin ba meel boodin joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni jimicsiga jimcaha barnaamijkan oo ugu magac darnay jimicsiga jimcaha waxaan alaaba ku eegi doonaa arimaha la xiriira bulshada iyo waliba suugaantii kala duwaneyd aad maalmaha jimcaha hayadan oo kale uga barateen in aan hawada idin soo marino hadaba qodobada caalamiga barnaamijka jimicsiga jimcaha aanu toddobaadkan idinku soo gudbin doono waxa kamid ah Facebook oo adeeg cusub soo kordhiyay adeegaasi oo loogu magac daray saaxiibada la aamini karo hadaba adeegaasi faa'iido caanka ah ayuu markaasi u leeyahay bahweynta isticmaasha bogga caanka ee Facebook qodobada kale ee barnaamijka aynu idinku hayno waxa kamid ah aroortii oo aad biyo badan cabtaa faa'iido badan ayay leedahay daraasad la sameeyay ayaa arintaasi noo xaqiijinaysa suugaan kala duwan oo filayo inaad ka la wada oran doontaan aynu sidoo kale barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waa mar kale iyo barnaamijkeeni jimicsiga jimcaha jimicsiga jimcaha waa barnaamij aan filayo magacaba ka gara ee inaad jaanta wada ruuxi doontaan dhinaciyo kaalimaha suugaanta maxaan ku bilaabaya labada qabtani acha wahida madun hirolanida ilaatayo dugsiga halkaysinuu gaadheen ilaatayo dugsiga halkaysinuu gaadheen anay kuqiibu reebtay dohor dugsigeeda malyoon hilooladisa anay hubibu reebtay dohor dugsigeeda malyoon hilooladisa salaabada habsamidiyo hasaawaheeda malyoon hibo la siista maxamed sulaymaan tube boqorkii codka Soomaaliyeed ayuu inta uga gudbeenaayay barnaamijka hadii aanu sii ambaqaadno qodobka ugu horeeya waa qodob aan filayo in asxaab aad u fara badan oo barnaamijka xilligan dhageysanaysa ay uu quseeyo hadaba qodobkan ugu horeeya ee barnaamijka ayaa ah aroortii hore oo aad biyo badan cabtaa faa'iido caanka ah ayay leedahay dadka qaarkii waxa ay subaxii soo toosaan iyadoo aad moodo in markaasi aan muddo toddobaad aan wax cabitaan ama biyo ahaanba aanu arag oonka iyo haraadka ka muuqda awadeed hadaba baaris badan oo la ogaaday isla markaana la sameeyay waxa lagu ogaaday in haraadka ama oonka faraha badan ay keenaan markaasi xanaaq ama caro oo qofkaasi ku seexday xilligii habeenimada ee uu hurdada galay subaxii hore aroortii marka uu soo tooso qofkaasi waxa uu u baahanayaa biyo aad u fara badan oo aad moodo in markaasi 2 litir ugu yaraan marka uu ka bado uu dib u sii milicsanayo cuntadiisa kale iyo maalin jooggiisa waxyaabihii uu markaasi caloosha ku sii ridan lahaa qofka isagoo aad u caraysan hadii uu seexdo uu u baahnaanayo biyo badan cabis ha ku seexan hadii aad markaasi soo kacdo biyo badan ayaad u sii baahanaysaa sidaasi waxa lagu yiri warbaahinta BJ oo markaasi ka soo baxda gudaha iyo wadanka China oo baaritaan caafimaad ay markaasi sameeyeen warbaahintan oo soo xiganaysa dhaqaatiir isugu jirta Chinese iyo waliba kuwa Germany ah waxa la sheegay in markaasi
ay arintan ay tahay mid dhab ah oo la ogaaday baaristanna ay tahay in mid muddo ah la sameynayay kadib la soo xaqiijiyay bulshada fara badan ee caalamka daafihiisa kala duwan ku nool waxa ay caado ka dhigteen in subaxii xilligii hore ee alisayda Soomaalida u taqaano marka ay soo toosaan ay biyo fara badan ka badaan isla markaana xilliga wixii ka dambeeya ee maalmihii kale ee caadiga ah qutulyoonka ay cuni lahaayeen ay si ambaqaadaan hadaba xanaaqa iyo carada oo aad joojiso in aad habeenkii ku gamacdo ayaa looga hortagi karaa biyaha fara badan ee subaxii loo baahanayo inkastoo dhaqaatiirtuna ay leeyihiin cabista biyaha fara badan waxa ay qayb leexaad la ka qaadanaysaa jirkaaga iyo caafimaadka guud ee markaasi aad heli lahayd maalmaha soo socda hagaag wali barnaamijkeena jimicsiga jimcaha ayaynu ku guda jirnaayay qodob xasaasi ah oo la xiriira Facebook oo soo saaray warbixin loogu magac daray saaxiibada la aamini karo iyadoon barnaamijka qaybihiisa dambe ku dhageysan doontaan iminkana waxa uu leeyahay Xasan Aadan Samatar fanaanka guuxa ila caruhu kaliil daay halal aqdul doog wiiraya hubal ashaqaagi halis kali naftaydi ila caruhu kaliil daay halal aqdul doog wiiraya عاشقاي هاليس كلي نفتيدي هذا العاء في ما قبا يقهو شحايلكو عبابي مايو نصيبكم قوبي مايو أنتنا وحبة وعيميني شهايلكو أبابي مايو نصيبكو قوبي مايو أنتنا وحبة وعيميني عدى عن ضميني كتشر هذا الكا كتشر هذا الكا كوباتشر عبدا عن ضميني كتشر هذا الكا كتشر هذا الكا كوباتشر Samatar aynu intaasi uga gudubno iyo codkiisii macaana iminkana barnaamijkeena ayuu si ambaqaadeenaye bogga xiriirka bulshada ee Facebook ayaa maalintii Khamiista ahayd ay tagtay waxa uu bilaabay inuu tijaabiyo feature cusub ama hab cusub oo loogu magac daray saaxiibada la aamini karo feature-kan ayaa waxa uu fursad u siinayaa qofka isticmaalaya Facebook in uu doorto 3 ilaa iyo 5 qof oo saaxiibo dhow la ah oo loo gudbin karayo lambarka khaaska ah ee uu sahlaya qofka in uu furto ciwaankiisa hadii uu lumiyo ama ay suurtagali weydo in uu markaasi u furmo boggiisa uu ku leeyahay dhinaca Facebook adeegan waxa uu ogolaanayaa kaliya in aad doorato inta u dhaxaysa 3 ilaa iyo 5 qof oo qonaya saaxiibadaada dhow kuwaasi oo aad tixraac uga dhigan karayso hadii aad lumiso in markaasi passwordka ama aad hesho furaha sirta ee aad ku gali lahayd ciwaankaaga feature-kan ama habkan cusub waxa uu ka soo muuqan doonaa qaybta account setting-ka loo yaqaano ee bogaga 800 oo milyan oo macaamiisha Facebook isticmaala looguna isticmaalka badan yahay ka tirsan sida maamulka bogga xiriirka bulshada ee Facebook ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen maanta afayanu hadlay Facebook ayaa sheegay in mustaqbalka dhow hadii ay dhacdo in qof isticmaalaya Facebook uu u furmi waayo boggiisa isagoo ilaaway furihiisa qarsoodiga ah ama passwordkiisa uu gujinayo forget my password oo ah waxaan hilmaamay lambarkayga sirta dabadeedna uu codsanayo in passwordka lagu soo diro Facebook saaxiibada khaaska ah kadibna uu halkaasi ka helayo lambarada ama xarfaha uu ilaabay taasi oo u sahlaysa in uu mar kale dib u furto boggii uu ku lahaa dhinaca iyo Facebook feature-kan cusub oo lagu magac daray saaxiibada la aamini karo ma ahan mid isticmaalkiisa uu la mid yahay in
isticmaaladii hore laga soo gudbayo hase ahaatee ma ahan mid lama huraan ah waxaana uu la mid noqonayaa siyaabaha kale ee qofka u sahlaya in uu dib u hanto lambaradiisa qarsoodiga ah ee uu boggan Facebook uu ka furanayo Facebook ayaa sidoo kale bilaabaya in uu tijaabiyo hab kale oo lagu sugayo ammaanka bogga oo ay dadka isticmaalayaan taasi oo password kala duwan loo adeegsanayo bog kasta oo uu yeelanayo aqoonsiga Facebook waan filayaa in asxaab aad u fara badani ay dudbaad dareemeen codka macaan ee dhegahooda ku soo dhibcay waa fannaankeenii caanka ahaa ee Said Cali Surax waxa uu ka waramayaa qurbaha iyo dhibaatada ay leedahay nin walba wadanka wax ku dhaama male walle bentiisa ma ahan qofkii qurba jooga ayaa xanuunkaasi dhidhamiyay Said Cali Surax codkiisa macaan ayuu gabi ahaanba ku soo afmeeraynaa barnaamijka yaga ee jimicsiga jimcaha tan iyo kulanti dambe waa saaxiibkeen Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed Ndajacayl oo idinku dhaafaya sida iyo naba dino What